Asalaamu calaykum asxaabta ugu horreyn isku day in aad iiga jawaabtid su'aalahan soo socda. Kow ma og tahay in aad buug walba ku dhammin kartid asbuuc gudihii adigoon akhriyin? Laba ma og tahay in aad bil walba aad dhammayn karto 2 ilaa 3 buug adigoon akhriyin? Waa ku ogaha waxaad sugaysaa jawaabta. Haddaba jawaabtu waa kanaalkan cusub oo lagu magacaabo Ogaal Side. Waxaa si joogto ah loo soo dhigaa akhrinta buugta iyo buugta ay asxaabtu soo codsato. Marka fadlan yaysan ku dhaafin buugtaas aad dhegaysanaysid keliya waa muuqaalo 10 daqiiqo ah. Fadlan channelka subscribe garayso si aysan kuu dhaafin. Casharadu waa bilaash, aniga ayaa kuu soo diyaarinaya, adna waad iska dhegaysan keliya waxaad helaysaa buuga aad u baahan tahay. Asalaamu calaykum saaxiibayaal, waa maalin cusub, saacad cusub, fiidiyow cusub. Waxaa maanta bilaabaynaa buug cusub oo la magac baxay Dhanbaalka Dhalinyaradan. Waxaa qoray Dr. Raaqib Sarajani, waxaana turjumay walaalkeen Maxamed Cumar. Waxyaabaha uu buugu ka hadlayaa waxaa ka mid ah dhibaatooyinka dhalinyarada, qayb ka mid ah taariikhda saxaabiyada, waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin dhalinyadii saxaabadda iyo dhalinyarada hadda joogta, niyada jabka, talooyinka dhalinyarada, iyo waxyaabo badan oo wacyigelinaya dhalinyarada. Marka fadlan muuqaalka like saar, channelkana subscribe garayso. Halkani waa hoyga buugaagta taxanaha ee nooc walba leh. Fadlan waxa aan kaa codsanayaa in aad channelka subscribe garayso. Halkan waxaa joogto ugu soo gudbinaa buugaaga xiriir ah oo aan halbogna laga boodayn. Dadka qaar waxa ay dhageystaan soo koobida buugta, laakiin malaha wax faa'iido ah. Buug la soo koobay buuga aad halkan ka dhageysatay waxa ugu xisaabtamaysaa in aad akhrisay oo kale marka joogtayso barteena YouTube ee Ogaal Side. Marka fadlan si wacan u dhagayso buuga, waxaana ku bilaabaynaa sidan. Dhambaalada dhalinyarada. Hordhac. Waxa uu soo fadhiistay agtayda, waa habeen dayaxu iftiimayo, waxa gubaya dareenka uu ku hayo arrinka inankiisa oo 20 jir ah. Waxa uu igu yidhi, maxaan sameeyaa? Waa aan ku wareeray arrinkiisa. Waxa aan ugu warceliyey, maxaad ula jeedaa? Ma waxa aad ka cabanaysaa in uu ka siibtay diintiisii, mise waxa aad ka cabanaysaa in aanu oogin waajibka salaada? Ma waxa aad ka xun tahay in uu xun yahay xidhiidhka uu waalidkiisa leeyahay? Xagee ayuu dhibku ka haystaa? Waxa uu iigu warceliyey isiga oo aad u kacsan yahay dareenkiisu ka soo horjeedka sidii aan u sheegayay. Waxaana uu igu yidhi, Dictor, anigu waxa aan ka cabanayaa in uu inankaygu yahay mid aad ugu dhaqma diinta. Waxa uu aad u dhexgelayaa in uu baadho xaraanta iyo xalaasha. Salaadaha masaajidka ayuu ku ogaa wakhtigiisa ugu badanaa. waxa uu ku bixiyaa akhriska bugaag aad u waaweyn. waxa uu aad uga hadlaa qadiyadaha Falastiin, Suudaan iyo Shiishaan. Hadal iyo dhammaan. Dictor, waxa aad talo bixin iga siisaa sidii aan maankiisa uga bixin lahaa arrinkaas. Ma diidaayo in uu tukado salaada, umana diidaayo in uu soomo, laakiin waxa aan doonayaa in uu u noolaado sida ay dhalinyarada faciisa ahi u nool yihiin, oo iska ciyaaro sida dhalinyaradaas faciisa ah oo kale. Talo isii Dictor. Talo ayaa igu baahday oo garan waayay wax aan ugu jawaabo. Talow maxaan u sheegaa oo aan ugu warceliyaa? Naftayda ayaan hoos ula faqay. Si qoto dheer ilbidhiqsiyo ayaan maankayga rogrogay. Kadib waxa aan ugu warceliyey, waxa aan kugula talinayaa in aad la fadhiisato inankaaga oo aad wax ka barato, waxna ka dhagaysato. Waxa uu u qalmaa in wax laga barto oo wax laga dhagaysto. Badanaa aabayaal u baahan toosin iyo tusaalayn. Badanaa dhalinyaro garaadkoodu koobcay oo uu gartayna xikmad aanu gaadhin garaadka aabayaashood. Waxaa sii kordhay dareenkiisii, mana uu fahmin saaxiibkay waxa aan u sheegayo. Waxa uu iigu halceliyey, Dictor, inankaygu muu dhaafin dhalinyaranimo, waxa uu ku guda jiraa da'da 20-ka. Intaas markii aanu isweydaarsanaya ayaan kacay. Wanan ka tegay, aniga oo dareenkaasi maankayga ka guuxaayo. Waxa aan ka tegay
oo aan dhex galay, oo aan dhex dhumbay, oo aan galay afkaar. Waxa aan is weydiinayaa, tolow muxuu ula jeedaa islaamku dhalinyaro? Maxay tahay kaalinta dhalinyaradu? Maxay sugayaan dhalinyaradu? Xaggay u socdaan? Iyo su'aalo badan oo kale. Dhiganahan dhambaalada dhalinyarada dhexdiisa ayaad kaga bogan doontaa idam alle warcelinaha weydiimahaas oo dhan. Bal aynu eegno dhibaatooyinka ay dhalinyaradaas ka cabanayeen. Qaar waxa ay ka baqayaan in ay shaqo waayaan marka ay dhammeeyaan marxaladda jaamacadda. Qaar kale waxa ay jecel yihiin in ay guursadaan se waxa ay ka baqayaan in ay awood u yeelan waayaan waxyaabaha uu guurkoodu u baahan yahay. Qaar kale waxa ay ka cabanayaan isku qasanka ragga iyo dumarka iyo waxa ka dhalan kara ee ah doonitaanada iyo dareennada dhalinyaranimo. Qaar kale waxay ka cabanayaan in ay xumaanta indhaha ka laaban karin. Qaar kale waxa ay ka cabanayaan manhajka waxbarasho oo ay sheegayaan in uu yahay mid faa'iido ka madhan. Qaar kale waxa ay ka cabanayaan cadadasgada. Kuwa kale waxa ay ka cabanayaan jacayl dhinac qudha ka raran. Koox kale waxa ay ka cabanayaan saboolnimo. Qaar kale waxa ay ka cabanayaan qabatinka cabista sigaarka. Mida waxa uu ka cabanayaa in uu doonayo in uu aabihii u iibiyo mid ka mida moobilada casriga ah, smartphoneska, laakiinse uu aabihii u diiday. Tani waa dhibaatada ay sheeganayaan dhalinyaradan masaaridda ahi. Waxaase aan muran ku jirin in ay tahay dhibaato ay ka masan yihiin dhalinyarada caalamka islaamka dhammaantood. Waa dhalinyaro jaamacadeed, aqoon ayay leeyihiin. Waxa ay bixinayaan dadaal iyo juhdi ay ku bixinayaan in ay ka qayb galaan kulummada lagu lafo guraayo aqoonta iyo ogaalka. Dhibaatadan ay sheegeen dhalinyaradu waa dhibaato ka dhalatay dhibaatooyinka isdulsaaran oo ay ka mid tahay ku dhaqan la'aanta shareecada islaamiga ah oo aan lagu dhaqmin waddamada muslimiinta, waxaana ay ku tiirsadeen qawaaniin ay iyaga gacantooda ku dejiyeen, bal ay dad aan dantooda ka shaqayn u soo dhoofiyaan. Waxa ay ka jeedsadeen ku dhaqanka kitaabka qur-aanka ah iyo sunnada suubanaheenna Maxamed Saw. Dhibaatooyinka aadka u ragaadiyey dhalinyarada caalamka islaamka waxaa ka mida dhibka haysta dalal badan oo islaam ah oo loo adeegsado. Waxa aan ula jeedaa hababka dulmiga ah, jidilka iyo dilka dalalkan la haysto ka dhaca. Waxa ka mida Falastiin, Ciraaq, Shiishaan iyo Afghanistan. Waxaa kale oo aad u dilay dareenka dhalinyaradan muuqdilka lagu hayo islaamka iyo dhulalka muslimiinta ee ay ku hayaan kuna tilmaamayaan warbaahinta afka dheer ee ay gacanta ku hayaan dadka aan muslimiinta ahayn iyo dalalkooda iyo dantooda toona jeclayn. Sababaha keenay moraal jabka dhalinyarada muslimiinta waxaa ka mid ah dhibaatada lagu hayo waxyaabaha ay rumaysan yihiin, sida in wareer lagu qaado nebigeena wanaagsan Saw oo ay dhaleeceeyaan gaaladu, iyo tun jilicsiga lagu hayo dadka muslimiinta ah, midaas oo lagu soo qorayo bogaga wargeysyada iyo majalaadka. Dhibaatooyinka dhalinyarada islaamka ah hanjabka ku riday waxaa ka mida in daymo lacageed dusha laga saaray dalalka muslimiinta ah badankooda, midaas oo aanay awoodin in ay iska gudaan ahna wado lagu adoonsan karo. Waxa kale oo ka mida waxyaabaha dhalinyarada muslimiinta ah aan laanta ku sababay dhibaatada maamul xumada iyo musuqmaasuqa, hufnaan la'aanta, tuuganimada, laaluushka, wax isdabamarinta iyo been abuurka ayaa dunida islaamka ka dhigay halka ugu hoosaysa liiska dalalka adduunka. Baadhitaan lagu sameeyey dowladaha caalamka islaamka dhinaca maamul wanaagga iyo akhlaaqda 10 dal oo keliya ayaa waxa ay heleen 5 ka mid ah arrimaha akhlaaqda, maamul iyo daahfurnaan. Waxaana ay kala yihiin dalka Malaysia 1/5, halka Tunisia ay heshay 5 ka mid 1/5. Kadibna dhammaan dalalka caalamka islaamka guud ahaan waxay ku fashilmeen arrimaha ku saabsan anshaxa iyo daacadnimada. Innaga oo og in Israa'iil 1/8 ka heshay dhinaca anshaxa, hufnaanta iyo khiyaanada la'aanta,
eber 6 dakhligeeda ku bixisa hal abuurnimada sayniska dakhliga qaranka halka Israa'iil ay ku bixiso 4 dakhliga qaranka sayniska iyo horumarintiisa. Waxaa ka mid ah dhibaatada gaadhid la'aan islaamka dhul ballaadhan oo adduunka ah iyo helista facdan oo aan maqal wax ka mid ah islaamka ama ka maqlay uun qab dilka islaamka iyo weji xumayntiisa iyada oo laga rabay ummadda islaamka ah in ay gaadhsiiyaan wanaaga iyo khayrka agtooda yaala qof kasta oo adduunkan dul saaran. Istaag isna weydii su'aashan, maxaa u dhexeeya dhibaatadii dhallinyaradii masaarida ahaa ay ka cabanayeen iyo dhibaatadan aynu sheegnay in ay dhallinyarada caalamka islaamka ku habsatay? Warcelintu waxay tahay dhibka ay sheegeen arrintaasi waa mid ku kooban shakhsiyadooda, halka kuwan aynu xusna yihiin dhibaatooyin guud oo dhammaan saameeyey dhallinyarada caalamka muslimka ah. Arrinkaasi waxa uu inoo caddaynayaa in arrin aad u khatar badan oo ah maqnaanshaha dareenkii ummadnimo ee dhallinyarada. Xalinta arrinkaas waxa uu u baahan yahay dadaal iyo naf hurnimo badan, sababta oo ah waa qadiyadka baxday maanka dhallinyarada islaamka una baahan sidii loogu soo celin lahaa oo dhallinyarada looga dhigi lahaa dhallinyaro dareen ummadnimo xambaarsan kuna warwaraya in xal u raadinta dhibaatooyinkan ka jira dhulalka muslimiinta. Su'aashu waxay tahay, muxuu danayn weyn u siin waayey qofka dhallinyarada ah arrimaha waaweyn ee ummaddiisa? Sida muuqata hadda dhallinyarada muslimiintu in yar oo rabigeen u naxariistay mooye waxaa ku dhacay xanuun aad khatar ah oo una baahan daweyn degdeg ah iyo danayn aad u weyn. halka ayuu ku eg yahay muuqaalkeena maanta. Fadlan muuqaalka like garee, channelkana subscribe garayso si aad ula socoto muuqaalada xiriirka ah ee aan halkan ku soo gubino. Mahadsani.